waxaan rabaa in farmaajo naseexada u dambeysay aan siiyo. farmaajo dagaal ha oogin, maxaa yeelay haddaa oogtid waxaan shaki ku jirin qofka u horeeya ku dhimanaya inaad tahay. wax badan waa inaad ka fahamtaa siyaasadda iyo qaabka Soomaaliya maanta ay u taagantay. adigaa orday oo aaday dal shisheeye oo wixii aad ku hadlaysay ka leexday. waxaad tiri nagama faragelinaya, naga isxalinaya, haddana xal waa keeni weyse. waxaad tiri shisheeye yuusan na soo dhexgelin, haddana adaa u orday oo koonga tegay. haddana adigaa diidayo dadkii aad waddanka ugu yeertay. waxaad ogaataa haddaad dagaal qaadid magaalada xamar meela kala aadaa male. markaan yaraa oo aan koraayay magaalada buurburta waxay lahaa jirtay meel yaraa kala reebto. labadii kuray ee la kala celi waayo kala reebtadaa la geeya. xamar waa kala reebto. haddaad dagaal qaadid xataa meel uga baxaysa ma jiro. haddaad isku haleynaysa eerboorka inaad ka baxaysid, eerboorka dad ayuu u xiran yahay. amisom la yiraa, UN la yiraa, safaaradahoo dhan ina meesha degeen wax kuuma sheegta miya. hal qof ma gelayso. hub inta Soomaaliya haysato ka badan ay haystaan, calankooda ay ka suuranayaan, Soomaali israacdaysanayso uma gelayso. taas xaqiijiso. magaalada xamarne inaa intaad dagaal ku haysatid waddanka kaleba ma haysid. inta hartay waa magaalada oo hadda aadan dhinacyo badan haynin. haddaad magaaladaas dagaal ka kicisid waxaad ku tala gashaa mar haddaadan ku dhex goowlaysan karin inaad ku dhimanaysid. ha dhimanin. waddankana taariikh xun madaxweyne nin ahaayay ku dhex dileen. ha soo jeedin. adigu nin naftiisa ka naxaayo uma tid sida ii kaa muuqato. naftaada ninka naxaayo uma ekid. laakiin sumcad darro meesha aa waddanka geesaha ku soo khatimin inaad ku dhex dhimatid. wax khatar waayo, aaday khatar u tahay. yacni wax kuuma sheegta miyaa waxa socdo. muwaadan qabin wax kuu sheego. waxay igu muuqataa inaadan qabin, annaga